waxaan ku soo dhaweyn doonaa amba maanta martiino ah maamulaha dugsiga sare alhuda secondary mudane xasan maxamed cabdi ku soo dhawow qalbi furan gacmo furan dugsiga alhuda primary iyo ku taal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام مغلنا سما ويا مصادو. أن معمولها دكسيجا هو صدقه الهدوان معلمين تشرفت له معمولك حجينك أرضيدا أدمن دمانتين بيدي سلامة وحنكم سلامة يا مرلبات سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii farxad bay tahay inaan idinkala soo qayb galo kulankan ay soo diyaariyeen guddida dacwadda ee dugsiga oo ustaad Mustafa Ciraaqi oo ah waxa weeyaan macallimiinta ruugcadaaga ee runtii dugsigana ka hawlgala muddada dheerna ka hawlgalayay dugsiga sare alhudana runtii macallimiinta loogu jecel yahay kamid ah waxa weeyaan qaybta ka ahaa aad baan runtii u baarikayaa uguna mahad celinayaa halkan maanta waxa lagaga hadlayay waxay runtii ahayd waxa weeyaan irams waxay maanta halkan ahayd wixii lagaga hadlayay arrin runtii muhiimadeeda leh oo u baahan wixii aynu halkan iska nidhi in aad iyo aad loogu dhug lahaado oo ardaydu kelmadahay soo jeediyeen iyo kelmadihii maamulka iyo macallimiintuba soo jeediyeen runtii aynu weelayno noqdaana qaar ina anfaca oo aynu waxa weeyaan ka dhigano maxaan ku dhaasahay waayo alla ka cabsigu waxa weeyaan nolosha gabigeedaba ah ama guusha nolosha ah inuu qofku garto wixii Ilaahay u abuuray markaad garato wixii Ilaahay ku abuuray hawlaha kale oo dhan waxa weeyaan way ku toosayaan waajibkii Ilaahay kugu lahaa markaad fuliso runtii aad baan markaa ugu amaanaya guddida iyo waxa weeyaan maamulka iyo macallimiinta hawshaas soo diyaariyay aad iyo aad baan u baarikayaa anigana farxad bay tahay inaynu saragno waxa laga yaabaa inaynu intaynu saragnay ama inta aanan runtii sarag ay aad u badan tahay waayo sanadkan ardaydii soo biirtay waxa laga yaabaa xafladii sanadkii hore inuu wada joognay oo qoladii 8ka iyo 7ka iyo 6ka iyo aan waxa weeyaan xafladii kala soo qayb galay laakiin qolooyinkii cusbaa waxa weeyaan maanta waxay noo tahay barasho cusub qolada 8ka ay waxa weeyaan sanadkan bixi doontana waxaan leeyahay haddii Ilaahay ka dhigo waan idin soo dhaweynaynaa dugsiga sare alhudana idin soo dhaweynaynaa kulay kulamo kalena waynu qaadan doonaa dugsiga sare alhudana waxa marxaati ka ah oo idinla jooga maamulihii dugsiga sare alhudu ka yimid oo had ogtiin oo la socotaan macallimiinta halkan ugu badan ee Ciraaqi ka mid yahay waxa weeyaan Cabdiraxmaan Sameeco macallimiinta runtii dalka ugu qiimaha badan leh Sameeco ma taqaanaan miya way uu ka mid yahay فرحان وجوجا فرحان عبد علي محمد يا محمد داق يا دمان وحويان waxaan jeedaan fadxiyo macallimiinta kale halkan ka hawlgalaana runtii iyaguna qaybun bay ka yihiin dugsiga aad iyo aad baan dhamaantiin idii baarakaya waa waqti dambe waa goor gaaban waana ku faraxsanahay inaad waxa weeyaan maanta sida quruxda badan runtii aad u soo diyaarsan xafladda anaguna aan kala soo qayb galno marka la farxad bay tahay aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsanyahay maamulka dugsiga sare mudane xasan maxamed cabdi waxaanu ku leenahay macallin aad iyo aad baad mahadsan tahay hadda waxaan u yeedhi doonaa ardayda xubinta guddida ka tirsan waa walaashii Sabriin tusmo ku soo dhawow dhammaantiin maamul iyo macallimiin iyo arday waxaan ku salaamayaa salaanta salaan ugu qiimo badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadoo dhan waxay u sugnaataa Allah subxaanahu wa tacaala inoo suurtageliyo suukan keenay goobtan waxbarashaadka aadka u qiimaha badan leh mar labaadku waxaan u mahad celinayaa maamulkii macallimiinta ka hawlgala dugsigeena Alhuda Primary School mar saddexaadku waxaan u mahad celinayaa ubaxan quruxda badan ee dhigayga ee horteyda taagan ee sida fiican ii dhageysanaya marafraadku waxaan u mahad celinayaa marti sharafta aadka u qiimaha badan leh ee inagala soo qayb galay barnaamijkan maanta aadka u quruxda badan leh marka xigta waxaan u mahad celin doonaa guddida dacwada iskuulka macallimiinta iyo hablaha guddida ku jira
aad baan mahadnaq kabacdi waxaan ka hadli doonaa mowduuc ka hadli doona ixtiraamka macalinka. macalinku waa iftiinka aqoonta waana cidda quudisa ruuxda. waxaan wada ognahay bini'aadamku inuu ka kooban yahay jidh iyo ruux. jidhku waxa uu quutaa cuntooyinka kala duwan ee alla inagu irsaaqay. ruuxduna waxay ku kortaa ama ku kobacdaa waa cilmigiiyo aqoonta. cilmigiiyo aqoonta ee allah kasaku waxayna bara waa macalin. ardayga waxa waajib ku ah ixtiraamka macalinka, waayo waxa uu noo taagan yahay booskii waalidnimo. waa inaad ka faa'iidaysataa macalinka, waayo waxa uu leeyahay aqoon iyo waayo aragnimo iyo khibrad aad adigu lahayn. macalinka waa inaad difaacdaa sharaftiisa, waa inaad ka fogaataa xantiisa iyo meel isaga sharaftiisa hoos loogu dhigayo. macalinku waa hagaha ama hormuudka bulshada. ardaydaasi aad iyo aad bay mahadsantahay walaashay. waxaanu ku leenahay adaa aflaxo aqoon dhigaye macalin 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 intii u mudnayd adaa maraye ammaaniyo adaa wanaag naga mudan macalin 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 adaa mugdigii ku iftiishay aqoon adaa mugdigii adaa mugdigii adaa mugdigii ku iftiishay aqoon wixii la dhigtaa anfaca yeeshee macalin 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 intii u mudnayd adaa maraye. shukran jazaakum allahu khayran wa axsana jazaa. ardaydaasi aad iyo aad bay mahadsantahay. haddaba ardaydiisi aad inoo caadisa waxaan u yeedhi doonaa ardayda qodobka saddexaad inoo akhri doontaa waana walaashay nuure ismaaciil. falyatafadal mashkuura maajuura yaa akhti. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. markoobaadka waxaa mahad iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala iskugu keenay madal meesha ugu qurux badan oo ah goob waxbarasho. mar labaadka waxaa mahad iskale maamulka dugsigeena alhuda primary school. mar saddexaadka waxaa mahad iskale macalimiinta dhammaanba ka howlgala dugsigeena alhuda primary and intermediate school. mar afraadka waxaa mahad iskale u baxan qiimaha qaayaha iyo qadarinta mudan ee sida qiimaha badan ii dhagaysanaya. haddaan ku soo noqdo qodobkayga waxaan ka hadli doonaa qodob magaciisa la yidhaahdo akhlaaqda wanaagsan. halkan waxaan ku soo jeedin doonaa talooyin inala hadlaya dhammaanteen anoo ka bilaabaya naftayda. waxaynu halkan ku soo jeedin doonaa talooyin. walaashay ma jira wax ka weyn oo aan kugula taliyo oon ahayn alla ka cabso, waayo qof kasta oo alla ka cabsadaa liibaan adduunyo iyo mid aakhiraba u gaadhaa. ilaahay ka cabso si aad u gaadho liibaan aakhira iyo mid adduunyaba. yeelo xishood oo cidda ugu horraysa aad ka xishoota ha noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuuray ku arsaaqay muuqaalkii ugu quruxda badnaana kuu sameeyey. bara diinta iyo qur-aanka oo ku dhaqan waayo barashada waxaa ka muhiimsan waa camalfalka.